بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليال وحان ما ogtahay jecelahay inaan idin dhamaystiro hawshii ahayd part 1 halka regionka gobolka Ogaadenia waxa aanan idin sheegin oo jirtay arrin muhiim ah gaajada ay ku dilayeen dadka shacabka Soomaaliyeed yani waxyaalaha aan ka xanaaqay ee wadanka u nacay kamid ah gargaar raashineed oo loo keenay oo masagi iyo ay ka mid tahay oo loo keenay dadka abaaraysan ay abaaruhu ku dhaceen iyo ninka ababa bagaasha leeyahay oo meesha xukumayay ogaasku waxba ma ahayn meesha uu dul fadhiyo oo waa loogu talagalayba ninkan amxaare la hoos dhigay baa meesha iska xukumanay marka ogaasku ma uu oran karin war maxaad waxan ugu gurtay bakhaarada dadka loo keenay marka masagadii loo keenay shacabka iyo bakhaar intuu ku guray ku daay daaniyo inuu ku cuno ku gaarsiiyay markaas yaan arkay waan nacay waxa aan u tagay isagii markaan isagii u tagay baan ka yiri ogaaso maxaan ku raahday ababa bagaasho lacag ma rabtaa waan rabaa buu yiri xageed ka keenaysa war haddaad rabto waan haynaa gacanteena ku jirtaa ma rabtaa ha ruurkan eed ku gurtay bakhaarka han qaadna on dixdan faafaneed dixdan magaalada dhex maraysa ceel kan faafan ay ku faafayso afka intaan ka xidhno hareerahana aan ka xidhno banka weyne qaraxayna maangadiyahan ugu sameeyno kolkaana han ku daadina haruurka baan kolka imisa milyan baad ka goosanaysaa waan han weynsiinayaa una maana isaga ugu batala gal waxaan leeyahay dad kolka uu baxo dad baa degan meesha dadkaasi baadii iyo waxaasi ha cunaan oo ha gurtaan baan leeyahay oo ha kaydsadaan oo kolka aw hadeeto la ka qoostana dhulka ha beertaan baan isleeyahay isaga ugu ma batala galin isaga ficilkii uma ka doonaya oo haruurkan ku soo saari lahaa iyo biyahan u xiri lahaa markaas iyo sidii yeelay haddaba waxa dhacday aniga oo ciidanka dhex gala oo ilaaladayda kolka aan meel u baxayna ay raacaan meesha doonto magaalada dhexdeeda iyo dibadaha kolka ay tahayba iya marka intaan ka soo baxo habeenkii ama galabtii meeshii ay ka fakatayna gacmahayga ku moosa waa idaba galeen marka idaba galeen ay ogaadeen waxaan bay yiraahdeen ninkani waxaan uu ka shaqeynaya waa maxay in ceelashiina aan biyihiidii qiyaasayo waayahay markaasaan weliba kolka in la daba galay aan ogaaday baan ka baxay oo meeshiiba xerada oo waxaan iska tagay laba nin baan saaxiib ku lahaa nin la yiraahdo dayib maxamed iyo nin maxamed qowdhan la yiraahdo dayib maxamed baan aqal yar oo galayay aan la galay siduuba uu la galay nin Soomaaliya baa la taagayay meesha oo uga baxay xeradii militariga ninkan muxuu u jeedaa muxuu sameeyaa markaas habeen aan baxayay shilaaba u baxayay waa inaan xerada seexdo laana laba gaadhi kabtan militariga iyo ciidankiisa ay raacaya kolka ayaa meeshii aan gogosheedii balaarsaday aan seexatidii difraashkeygii sariirteedii yaray ayaa la isoo qaaday waxaa la ii geeyay booliiska generaalka booliiska kii xukumaya koloneelkii oo aqalkiisii loo ila tagay kolkaas isagii loo soo saaray anigiina goonaa la ii joojiyay waa lala sheekaystay oo lala heshiiyay oo sida iyo waxa aan sameeyay waxa uu sameyn doono iyo waxa la igu tala galay iyo baa laga wada hadlay waa koloneelkii ciidanka da waxa kolka ay soo qaaday xerada aan degana kolkaasuu la ii heshiiyey yaa booliiskii la geeyey booliiskii oo ankeed la iga wado iyo ilaahay soo dejiyay subxaanallah meeshu kolku ilaahay ku badbaadinayo dhibaato wax dhib ma leh iyo ilaahay soo dejiyay gaalkii Faransiiska ahaa ee projectga ba xukumay oo xeradii militariga dhigtay gaarigiisii oo yiri aawe cali qaalib imiko inuu baxo weeyaan oo yani ilaa iyo shilaabo laano afar taabeenimo weeye waxa inaan baxno hadiya jeer afar taabeenimo aan baxnaa kolkaan meel u baxayno aawe inuu baxo weeye kolkaas la yiri booliiska xerada uu yimid
ninkan ma qaadi kartiin waxna kuma samayn karaysiin ilaa uu brojeega uu mas-uulka ka yahay uu dhammaystirsado leanna kol uu bilaabay brojeeguna haddii uu maalin brojeegu waa saacado iyo midhidho iyo maalimo waxa uu wadanka oo dhan ku socdo kolkaa dib uuma hari karo brojeegu kolkuu brojeegu dhammaado anaa idiin soo qaaday oo idiin siinayo kaydi waa hadal sidii kolkuu yidhi ayaan baxay shilaaban tegay waan soo wareegay wixii dhul aan mari lahaa kolkaan soo noqday weeye waxa aan arrinta dhalinyarada aan idiin sheegaya aan lacagta siiyay aan idhi warbal ii heestaas maxaan ku dhahdaayay taariikhda dunida iyadoo isdaba taalninba meel ku tuurtay aniguna tusmaysto qayrkay halku tegay u tabaabulshaystayda aan dee sameeyey markaa taasaan ma ogtahay aanan idiin dhammaystirin bay ahayd markaa talabaad ay shacahan kusoo noqda dirdhabaan kusoo noqda dirdhabe waxaa jiray ma ogtahay xadiidka dhigistiisii shuruudyuu ku xidhnaa ay ciisuhu ku xidheen shuruudahaasoo ahayd oo la dhigay in jabuuti kolkuu ka soo baxo frontierka dawanle ama galiile ilaa iyo adsaaba inuu ciidanka inuu booliis inuunan ma ogtahay ciisuhu uu ilaaliyo nabadgelyadiisa uusan ciise waxba ku samaynin cid kalena waxba ku samaynin talabaad ciisaha iyaa ma ogtahay xadiidka dhigayay kana shaqaynayay ilaa iyo weligiiba ilaa iyo malas uu yiminayay waxa ka shaqaynayay xadiid ilaa iyo maxaan ku dhahday Mengistu Haile Mariam waxa ka shaqaynayay xadiidka dhigayay oo repareynayay oo jadiidinayay oo ka shaqaynayay hagaajistiisa Soomaalida marka taas kow nabadgelyadiisana waa inay ilaaliyaan talabaad gaari in loo xidho tareen kastoo baxayo Jabuuti tagaya hadday faalto tahay hadday casajoog tahayba dadku raacayaan iyo ka xoolahaba gaari loogu daro ay raacaan oo bilaasha ilaa iyo Jabuuti ay kagana soo noqdaan in loo xidho on lacag laga qaadin laannama gaadhigan tareenkan casajooga lagu leeyahay ee dumarka iyo sharshaariga iyo rag dadku ay raacayaan lacag baa lagu fuulaa oo lagu raacaa kolka isaga inaynan iyaga gaadhi loo xidho gooni ah oo lacag lahayn iyo haddana ku jirta heshiiska markaa saasuu iyagu ma ogtahay heshiisyadaas lagu gaadhay oo ciisuhu la gaadhay talabaad ta kale waxa weeyaan xagga educationka waxa weeyaan iskoolka u horeeyay oo la dhisay waxa iskoolka Faransiiska oo Faransiiskuna u dhisay dadka uu ka shaqayn doona xadiidka kani uu dhigay ka shaqayn doona in ay Faransiiska bartaan oo waxay ma ogtahay ka shaqaynayaan uu Faransiis yahay oo administrationku Faransiis yahay oo technique Faransiis yahay kolka ay baranayaan xataa gaari tareen wadeenta af Faransiis loogu dhigayo kolka ay technique baabuurku kolkuu wax noqdo iyo kolka ma ogtahay la repareynayaba ee la jadiidinayaba Faransiis oo gaaladu ugu dhigaysay in ay kolka darteed Faransiis bartaan iskoolka waxa dhiganaya un Soomaalidan hooyooyinkood ay ka shaqaynayaan tareenka iyo kontrabaga maxay horta ka shaqeeyaan dadkan sheegay dumarkan tareenku waxay qaadayeen jaadka oo kontrabaa iyo Jabuuti geynayeen kow waxay qaadayeen khudradda oo Jabuuti geynayeen waxay soo qaadayeen bariiska iyo baastada iyo shaaha iyo caanaha daasadaha iyo wax walba oo baacmishtar oo la iibiyo Jabuuti iyay soo qaadayeen oo keenayeen dukaakinta carabta iyay u soorayeen oo qaadanaysa iyo dukaakinta ciisahaba ama Soomaalidaba iyaa qaadanaysa dukaan kaliya hatay oo Oromo oo waxan iibinaya ama qaadanaya maba jirinba kolka dumarkaas shaqada ay qabanayaan lacagta ay ka helayaan iyo odayada oo ahaa contrabandist jaadkan intay Jabuuti ka dirdhaba ka qaadaan ay shacal la tagaan oo xidhaan oo ay sorsooraan ay geeyaan Jabuuti kontraba ahaan diyaaradii ma jireen waagaa dee ma ogtahay diyaarad qaada oo Ethiopian Airlines iyo Djibouti Airlines iyo waxaan la yidhaahay ma jiri jirin marka oo waa lixdameeyihii ilaa iyo waqti dambe 774 ma jiraynin kolka maxaa dhacay
waxa dhacday in ay dadkaas caruurtooda ay iskoolka faransiiska ay geeyaan oo ay waxbaraan kolkay waxbaraanna ay geeyaan shaqada ay tagaan iskool dowladeed ma jirin waayo dambe dagaalkii labaad ee adduunka iyuu dhisay iskool la gaarka dhinaciisa bidixda ka jiro kasoo horjeeda xagga bidixda kaga soo jeeda oo la yidhaaho luul makonan Haile Selassie dhisay iskoolkaana waxa dhiganaya amxaarada maamulka ama amxaarada booliiska ama amxaarada ciidanka ama unbaa dhiganay cid kale ma dhiganayn waa oroma kuma xabadina kuma jiraynin marka ardayda ay shaca iyo laga soo bedilo maxaan ku idhaahdayay hadhagaala oo Soomaali u dhigaysay iyaa kolkaa la keenayay Dirdhaba iskoolka ilaa aqalka 6 waa kolkii kuwa la keenay aqalka 8 baa loo bilaabay aqalkii 8 laano xaggaabay 6 ka soo dhameynayeen 7 baa lagu daray oo 8 buu noqday kaas iskoolka ma jiraynin Dirdhaba iskoolkan maxaan ku idhaahdayay Christos la idhaaho wuxuu ahaa dhakhtar uu Talyaanigu lahaa oo dhakhtar uu Talyaanigu dhisay dagaalkii labaad kolkuu dhulka qabsaday uu dhisay bay ahayd dhakhtar buu iska ahaa anaaba la iga daweyn jiray marka kolkaan yaraa kolka dhakhtar buu ahaa kaasina ma jirin iskool ma ahayn waa waaye dambe shalay waxa laga dhisay iskoolka laga dhigay waayahay dhowr iyo 60 kadib maxaa dhacay in noloshiiba ay noqotay kubbaniga iyo maxaan ku idhaahdayay kontrabaga iyo oo uu u diiday kontrabagana dee qasab bay ahayd oo maxaan ku idhaahdayay askar iyo booliis iyo balaayo u samaystay weliba Soomaali iyo leh mid Soomaaliya laakiin askartu ma jiraynin kaayna waxa uu ugu samaystay si uu moogtay dhulkii oo dhan buu yaqaana ilaa iyo xuduudda Soomaaliya ilaa xuduudda Djibouti buu garanayaa kolka si uu u soo qabto askarta Etoobiyaanka u kaxayso u soo qabsado iyo ugu talagalay kaana wuxuu uga dhigay wax kale ma ahayn waayahay maxaa kolka adaba ay shaqadii oo ka joojiyay oo noloshii ka xidhay oo wax kastaba ka xidhay dadkii dhibaato ay ku soo dhacday dhibaatadaas ay ku noolaayeen dadkii Dirdhaba waayahay haddaba maxaa dhacay tacliinta saasay ma ogtahay ku yimiday in ay dadku noloshaas ay halkaa ka helaan nolosha ay ka helaan waayahay waxaan u imanaynaa maamulkii waxa weeye maamulkii kolkaan nimaadno Dirdhaba waxa xukumayay wuxuu ahaa warada kolkii dambena waradihii awraajo u wareejiyay kolka hore wuxuu ahaa Ciise na gurgura warada kolkii dambe wuxuu u wareejiyay intuu Ciise gurgurihii kala saaray iyo Ciise na Cafar uu u buuxiyay cadaalina Ciise oo ka dhigay cadaalina Ciise haddana kolkii 65 ay Djibouti qaadatay xorriyadda dagaal u dagaalamaysa uu ogaaday in ay Ciise iyo Cafar ay tahay waxa dagaalamaya ee magacii laga bedilay Djibouti French Somaliland Ciise cadaalina Ciise laga dhigay territoire français Cafar Ciise iyo yidhi dadka heshiiyay ee ma ogtahay xorriyadoonka ee halka ka dagaalamaya haddii ay xorriyadda qaataan armay ku soo heshiiyaan ilaaha waa iskugu yimaadeen iyaga oo isla socda uu yidhi haddana kala qaaday oo isku diray dagaaladan kolka imika socday halka bay ka waqtigaaba bilaabmeen markaasuu isku diray dagaal bay isku bilaabeen waayahay kolka Dirdhaba haddana wuxuu isku soo celiyay Ciise iyo gurgurihii ee kolka hore kala qaaday oo isku diray iyo haddana isku soo celiyay waxay noqotay awraajo gooniya waxa iyada iyo erer baa laba awraajo noqday labadii awraajo maxamuud Jarman baa ta erer xukumayay tani Dirdhabana waxa xukumayay kolkii dambe uu ka soo qaado oo isku daray oo kolkaa wuxuu ka dhigay awraajo quru ka dhigay kolkaasuu maxamuud Jarmankii xaggii ka soo qaado Dirdhaba keenay Dirdhaba kolkaa maxamuud Jarman baa xukumayay waayahay Mengistu
iyaa yimiday Mengistu kolkuu yimidayna wuxuu ka dhigay Dirdhabe ismaamulka gaarka ah ee Dirdhabe buu ka dhigay ee Ciise iyo Gurguraha kolkaasuu u dhiibay maamulkiina nin kale oo Ciise ah oo la yidhaaho Cabdilaahi Sheekh Axmed la yidhaaho ayuu u dhiibay war waxaasoo dhan dee kolka ay saa ay dhulka u socdo maxaa xaggee Oromo ay jirtay kolkan markii Hayle Silaasana uu nin Ciise ama Soomaaliya uu hayay markan Mengistuna uu nin Soomaaliya hayay markii Hayle Silaasana ay wareedho Ciise iyo Gurguro iyo Ciise iyo Cafar iyo ay isku badbadilaysay markan Mengistuna ay isku badasay ismaamulka gaarka ah ee Ciise iyo Gurguraha waxaasoo dhan kolba ay isbadbadilayso hadday maamul tahay hadday magac tahay hadday wax kastaba tahay xagee iyo kolka kumbaniga iyo tacliinta hadii ay tahay oo nin kaliya hatay uunan wax ka baranin Dirdhabe iyo ama uunan maamulka ka qabsanin ama maxaan ku idhaahdaayay kumbaniga uunan ka shaqaynin kumbaniga waxa ka shaqeeyay laba nin oo Christian oo laga keenay Adsaaba laano Christian ma lahayn Dirdhabe dadka degani dad muslim oo Soomaaliyeed bay ahaayeen hadday agagaarka xataa ahaan lahaayeen Christian ma leh waa Soomaali agagaarka ilaa harar u baxaya waxay ahaayeen Islaam bay ahaayeen ma ahayn gaalo kolka laba nin oo laga keeno midna Nuguse la odhanayay midna la odhanayay Michel iyo Adsaaba laga keeno ka shaqeynay mid kaliya hato Guraagana waa la keenay oo ka shaqeynay waxa weeyaan ninka ka shaqeynay tareenka noolka guraya oo hotel ku leh bundada agteeda hotelkaasina meesha waxay ahayd hotel wuxuu ahaa dhakhtar Talyaani uu ka shaqeynayay ninka la yiraahdo aadan allaale aabihiina kolkuu dhintay walaalkii aadan walaalkiisa ka weyn oo Idris allaale la odhanayay iyaa ka shaqeynayay marka xaggay jireen dee dadkan Oromadii maxay ka shaqeynayeen bal meel qurahaatay un bal han tilmaamnay meel qura ma ay lahayn oo ma ay tilmaamnayn waayahay kolka tacliintii halkaas horta iyadu ay joogtaa dadkii waxay ka shaqay wax bartay waxay ka shaqeynayeen kumbaniga waayo Mengistu baa yimid Mengistu kolkuu yimidayna magacii un buu haystaa ninkii ka shaqeey maamulayna sidaa un buu ninkii Soomaaliga u ahaa laakiin dadkii noloshoodii buu xidhay oo baabi'iyay oo dadkii kumbaniga oo dhan iyuu ka baabi'iyay ka eryaday xataa ilaa Jigjiga dadkii ka shaqeynayay oo dhan buu ka wada eryay oo Amxaare wada ka dhigay Amxaar buu ku soo bedelay shaqadii kumbaniga ee Faransiiska lagu shaqeynayo Amxaare ka dhigay wixii oo dhan buu wada bedelay dadkii buu ka wada eryay dadkii baa dhacay guryahoogii buu qaatay in uu dadkii baa noqday in ay wax Soomaaliya u orda iyo wax Djibouti u orda guryahoogii ay galayeen bay ka wada tageen oo qaatay bal fiiri kolka xageebay ku noolaan karaan dadkii dhibaatada ay kolka ay u timiday shaqo la'aan kolka ay u timiday maamul la'aan kolka ay u timiday ninkan magaca un buu hayaa kolka bay ka dhintay laano kama bedeli karo de magacii ninkan Soomaaliga ee haya maamulka isagu waa kumbanigi weeyaan shaqo kuma leh waa xagga sare waxa laga maamulayo ee qaatay hadeed kolka maxaa kale waxa kale soo haray Mengistu dhibaatooyinka intaa la eg ee uu sameynayay waxa bal hadda aan u nimaadno maamulka waxa ku jira ma ogtahay baarlamankii Adsaaba la sameeyay 1950 baarlamanka la sameeyay Dirdhabe nin Oromo kama soo galin nin Oromo laba goor bay laba nin isku dayeen labada goor ay isku dayeen waxa weeyaan 1961 buu isku dayay ninka la yiraahdo Cabdusalaam Xaaji Xuseen Xaaji Muusa Cabdusalaam Xaaji Muusa يكون 1961 isku day qof qura ma uu helin ka kacbu noqday
saddex iyo toddobaatankii 1973 buu haddana cabdoosh laazimi uu isku dayay ka kac buu isna noqday warda xaggay jiraan kolkaa waa sidee kolkaa iyagii isagiina ka kac buu noqday waayahay maxaa haddaba yimid oromo kolkaa xaggeebay ku maqnayd halkeebay lahayd halkeebay deganayd waayahay maxaa soo raacay labada gal ee jira ee magaalada dariifyadeeda ee qoriile iyo butuji een ku tagaynay een ku dabaalan jiray laba gal oo waaweyn oo buuro dhexdooda weeye iyay ahaayeen nin qurahato oromo nagula dabaalanaya ma jirin goortaan tagnaba nin oromo ah ma arkaynin oo ku dabaalanaya ma jirin leanno weynan jirin way tegi lahayen way ku dabaalan lahaayeen marka oromo xaggeed ahayd xaggeed joogtay maxaan ku idhahdaayay dee mar un meelaha qaarkoodan ka sheekaynayno lagaaga waayay kolka ilaa iyo 74 ilaa iyo 87 dagaaladii Soomaaliyeed iyo aad ma og tahay wax weyn u geystay dhulka يعني دي الصومالي وما جيسن الدجال كيل إثيوبيا إسكو هيين بإثيوبيا هديد حمانتي أي هيسي كسي ويناتي أو دبات سي بدن أي قصة ما يسددك أمد الصوماليات وياي لقال حمي إياكو قبصتي دتكي الصومالي ذاها dhaqaale xumidaas wadanka ku qabsatay ee guryahooga ay la wareegeen iyo yimiday muxuu ahaayay qoladan tigreega dhibaato weyn iyo dhabarjab baa ka qabsatay dirdhabe hadday idsaabo dhib yari ku soo qabsadeen waxa ku qabsatay dhibaato weyn oo dad badan lagaga laayay ciidan badan lagaga laayay iyagii iyo Eritrea oo isla socda TPLF iyo EPLF labadooda isku duuban ayay wada yimid dhabarka laga jabiyay EJLF baa ka jabisay oo la dagaalantay oromo kolka halkay joogtaa iyadoo haddana may la dagaalanto may ka dhabata dhulka ay sheeganayso balfiiriyo ma jirinde waayahay dhulkii kolkuu qabsaday xumaanta ay ma og tahay calool xumada oo u qaaday Soomaalida maadaam ay dirdhaba ku dagaalameen ay dhabar jabiyeen iyo dirdhaba gooni uga saaray Soomaalida dirdhaba gooni uga saaray kolkaas ismaamul gooniya ka dhigay oo ka dhaxaysay oromo oon jirin iyo Soomaali iyo kuwii yimid waqtiga ma og tahay isagu soo galay ciidankii Mangistu iyo booliiskii Mangistu ee ka baxsaday isaga kolka inuu qabsaday ay arkeen maxaan ku idhahdaa magaalada galay ee taandhooyinka iyo buulalka iyo samaystay iyo aqaladii laga yaacay hore ay wada galay iyo aqaladii qabaleegu samaystay qabaleega wuxuu u samaystay aqaladii dadka weeyaan ee intuu kala dhaco uu ka eryado ee wadanka ka baxsaday iyo qabaleegu qaadanay aqaladii buu ma og tahay wada galeen way degeen dhulkii Soomaalina qalbi wanaagooga ee maxaan ku idhahdaa aynan aqoonin xumaanta iyo aqaladii wada dejiyeen ilaa imikay dejiyaan oo halkii maskarada ahayd dirdhabe aan garanayo ee laga guuray ay Soomaalidu qaadatay waaga iyay maanta Soomaali xabad qurahaatay oo dukaana kuleeyna oromi iyo amxaare iyo halay maxay gureele iyo guraag ay ka kireeyeen qaarkoodna kaba iibiyeen oo qaateen laakiin Soomaali baa kolka hore qaadato ka dhisatay dukaakiin yar oo fara badan oo ilaa 100 guri noqonays dukaan intiiba waxa wada qaatay oromi iyo amxaare iyo guraag Soomaali waxba kirasay uga qaadanayeen uma kolkii dambana ku dhifteen ay war naga tag yaanu maamulkiiba power yeeshay maaha war naga tagay yidhaahdeen qaateen
waxba ma hayaan. marka sidaasay dhaqaale xumina ku qabsatay. Mangistuna turk group baagan tigreeguna uu wadankii kusii qabsaday. baarlamanka yaa mariyey dirdhabaha laga dhistid baa layidhi, caasimadda laga dhigtid. baarlamankaa diiday, leanno baarlamanka ayaa u badan dee intaas maadaam ay u ballaadhan yihiin dad oromadu, iyay maxaanku idhahdaayay iyay baarlamanka in badani ku soo baxday. intiibaa foodka dhigto ma jirta tidhi. nin indhala oo dhagala oo baarlamanka anigoo dusha dadka dhagaysanaya ah iyaa yidhi waxaa dirdhabi ku taallaa xundhurta oromada. war xundhurta waatee tay madaxa ilaa mijaha udhaxaysa soomaa, xagee xundhurta kaga taalla? haddii la yidhaha xundhurta soomaalida haa, lianno min dirdhabi min jabuuti xuduudeeda ilaa iyo hawaas iyay u dhaxaysaa. kolka bal wixii waan dib dambaan ma ogtahay part 3 uga dhigi doonaa waxaa ma ogtahay hadhay sidaa iyo walaalayaal nabadgelyo. like sameeya, share sameeya, subscribe sameeya. waad mahadsantihiin.